والله أمور بين نحن تكيمان إسرائيل قلب جبكة إيو warwarka nahaya caawa iyo baroortan ku jirno mid waxa weeye dadka shicibka ee dhintay meel shicib uu ku dhintay waxa taala maxaan ku raayay xanuun weyn baa yaala ciidanku meel uu ku baabay amba ku dhintay sidaas leeg waxa labadaba ka sii weyntii qadiyadii iyo dantii guud ee Soomaaliland oo labadii iyadana daawac weyn maanta caawa u gaaray intaasi markaad isku duubto waxay keenayaan qoomamo weyliyo calool xanuun iyo qalbi xanuun waxaad taariikhda ku haysaa ama si aad ogtahay in halka shir uga furmay dhaqan xaaladda laasacaanoodna muddooyinkii ugu dambeeyay isha si gaar ah loogu hayay arinta dhaqankii markii go'aanada ay soo saareen ka soo baxday sidee bay kula muuqataa professor dad wadan ku nool amba gobol ku nool amba magaalo ku nool amba daabiyad ku nool xaq bay u leeyihiin haday yihiin dad xora oo dimuqraadinimo wadankooga ka jirto inay isku yimaadaan door walba ka sheekaystaan ay rogaan walba xaaladaha iyaga ku saabsan halka ay marayaan marka inay halka la isku yimaadaan laasacaanood oo community-gaasu dadkeegii madaxda u ahaayeen intii kalaba ay soo wakiisheen isku yimaadaan oo ay wada tashadaan oo ay ka doodaan arrimaha iyaga xaqooga ugu waaweyn maskaxdooda taa xaq way u leeyihiin oo markaas taas wax lala yaabo maaha waa in faad wax la taageero weeyii laakiin waxa ka soo baxa ayay doodi ka imanaysaa waxa ka soo baxay hadaba ee ah inay jiritaankii Soomaaliland yiraahdeen anagu kama mid nihin Axmedow professor gudoomiyaha urursiyaasada Kaylaaco iyo arrimaha idinku dalka aad ka haysaan doonaysaan in Soomaaliland lagu wada yeesho nimankiina siyaasiyiinta waaweyn ka soo jeedi beelaha darafyada bal arintaas waa faji arinta isku haynta Soomaaliland ma aha oo intu darafyada hadalkeegu ka soo baxay meel walba way taalaa oo Hargeysa dad joogtood Burco joogtood Rigaabo joogtood Berbera joogtood arinta waad maqli wadan walba iyo dadka ku noolina goor walba inay gacanta ku hayaan wada jirkooga iyo wada socodkooga waa laga maarmaan laakiin arinta hadalka halka ka soo baxay wuxuu marxaati ka yahay cad soo ururtay cabasho soo ururtay tabaalo soo ururtay oo muddo badan soo socotay oo qaraxday ayay noqonaysaa Soomaaliland waxay u baahan yihiin gees ilaa gees iyo bartanka waxa loo baahan yahay ummadda inay fahamto oo la keeno dad soo ururin kara xaqa ay leeyihiin dadka bariga degan khaasatan sool ee maanta halka soo gaarsiisay in dagaal ka dhaco oo isla u hadlaan xaqa yaala waxaan ku raayay galbeedka magaalada Boorama ee xarunta Awdalwa iyo Salal dadku waxay tabanayaan oo 30 sanadood ay ku baaqayeen ay soo dhigeen oo aniga la fahaantayda ay keeneen iyadoo qoran oo madaxda wadanka hor dhigay muddo laga joogo ilaa 5 sanadood iyo xaq yaala dadka bartanka degan ee reer Soomaaliland iyagana xaqooga la garto saddexdaas ayaa la isku qaadaya xaqa ballaaran ee qaranaysan ee ummadoo dhambe ay wadaagto ay dhalinyaradu ugu horeyso hawlaha xagga dhaqaale darrada caafimaad xumada biyo xumada wada xumada shaqo la'aanta cudurka xun waxa soo dhan ee ummadoo dhan wada saaran dadkii waxa isku keeni lahaa afarta isku keeni lahaa ee ka soo saari lahaa vision cusub iyo wada cusub oo la baro iyo karti iyo karaamo cusub keeni lahaa dadkaas waa inaynu raadinaa ee reer Soomaaliland